السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يالكو سودواada FBL Soomaali mar kale waa aniga oo Daahir Cabdulcali toddobaadkan waxaan sii wadaynaa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay isbuuc ciyaareedyada sida maalinlaha ah isbuuclaha ah loo ciyaaro isbuucii la soo dhaafay waxaa noo soo dhamaaday isbuuc ciyaareedka 24aad isbuucaasna waxaan ognahay in kooxaha ay qaarkood ay lahaayeen double game week sida Manchester City, Everton, Fulham, Burnley kooxahaas oo dhibco badan soo xareeyay haddii aan si guud fiirino ciyaaryahanada ama dhibcaha ugu badan soo xareeyay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Fulham ee ayna oo difaac ka ciyaara ayaa 20 dhibcood keenay sidoo kale waxaa 20 dhibcood keenay Aubameyang labadaas ciyaartoy ayaa ugu dhibco badnaa laakiin markii la fiiriyo ciyaaryahanka mar walba difaaca ah ee dhibcaha ugu badan keeno ayaa mar walba kaalinta koowaad ka galay sababtoo maadaama uu difaac yahay dhibco badan uu keenay shabaqiisu u ilaashadii caawin uu sameeyay mar walba sidaas ka hormaraya si guud 12 ciyaartoy ee dhibcaha ugu badan keenay waxa ugu horeeya goolhayaha kooxda Manchester City oo toddobaadkaas lahaa laba kulan kulankii ugu horeeyay waxa uu ahaa kulankii uu caawinta sameeyay sidoo kale shabaqiisu u ilaashaday ee la ciyaareen kooxda Man City kooxda uu hogaamiyo Mourinho ee Tottenham kulankaas 3-0 ku soo dhamaaday goolahayaas ayaa caawin sameeyay oo goolkii Gundogan uu dhaliyay caawintiisa sameeyay sidaasna ku soo xareeyay dhibco gaaraya 14 dhibcood toddobaadkan ciyaaryahanada daafaca waxa ugu horeeya ninka hore uga hadlay ee ayna oo u ciyaara kooxda Fulham ninkaas oo kulankii horena sameeyay caawin kulankii ku xigayna sidoo kale soo xareeyay dhibcaha bonuska ama kuwa dheeraadka ah sidaasna 20 dhibcood ku soo xareeyay ciyaaryahanada u ciyaara kooxda Burnley oo iyagana lahaa kulamo laba kulan lahaa oo kulan u dhacay Fulham kulankii kalena wajahay Crystal Palace ayaa waxa kamid ahaa Matthew Lowton ayaa ugu badnaa oo 17 dhibcood keenay Matthew Lowton ayaa gool cajiib ka dhaliyay kooxda Crystal Palace kulankii kalena shabaqiisa kulankaas shabaqiisu ilaashaday 12 dhibcood ugu keenay kulankii ku xigana 2 dhibcood ayuu keenay sidaas ayuuna markii la isku dardaro waxa uu keenay 17 dhibcood Lowton ciyaaraanka kale asna dhibcaha kala keenay oo daafac ka ciyaara waa Diop oo ciyaara kooxda West Ham United isagoo keenay 13 dhibcood ciyaaraanka kale ee daafac asna dhibcaha keenay waa Anderson oo ciyaara kooxda Fulham oo 13 dhibcood keenay xagga qadka dhexe markaan fiirino Aubameyang ayaa keenay 20 dhibcood oo isagoo dhaliyay 3 ley kulankii Arsenal ay 4-2 kaga badisay kooxda Leeds Aubameyang ayaa waayada la soo dhaafay gool badan dhalin laakiin kulankan waxa uu keenay 3 leydiisii ugu horeysay ee Premier League uu ka dhaliyo isagoo Arsenal ku soo biiray aan ognahay bilowgii sanadii 2018 ilaa haatan waxay ahayd markii ugu horeysay ee uu dhaliyo 3 ley waxa kaloo qadka dhexe dhibco badan keenay waa Gundogan ayaan ognahay in kulankii Manchester City ay 3-0 kaga badisay inta laba gool dhaliyay hadana caawin sameeyay kadibna dhaawac kaga baxay garoonka waa nasiib wanaagsan sidoo kale nasiib daro waxa uu sameeyay kulankii ku xigay ee Man City ay kaga badisay kooxda Everton 3-1 sidaasna wali wuxuu ku haystaa 19 dhibcood ciyaaryahankan ayaa inta badan maadaama toddobaadkan uu ahaa toddobaad ay kooxda Man City ay lahayd laba kulan ay tababaryaal badan ay ka faa'iideysteen oo ay tababaro ka dhigteen ay kabtan saarteen ama qaarkoodna ay triple captain ay saarteen jibaaradaas ay uga faa'iideysteen waxa kaloo 15 dhibcood keenay ninka saaxiibkiis boosiskaas lagu soo bedelay oo 15 dhibcood keenay kulankii ugu dambeeyay isagana sidaas oo kale sameeyay oo gool ayuu dhaliyay sidoo kalena hal caawin ayuu sameeyay kulankii Manchester City-na waxa uu ciyaaray 90 daqiiqo uu ciyaaray sidaasna waxa uu ku helay 2 dhibcood markii la isku dardarana waxa uu keenay 15 dhibcood waa Bernardo Silva ninkan ka hadlayo ciyaaryahanka kale ee qadka dhexe asna dhibcaha ugu badan keenay toddobaadkan waa Ruben Neves oo ciyaara kooxda Wolves ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Southampton Ruben Neves ayaa dhaliyay sidoo kalena gool caawiye ka ahaa mid kamid ah goolashii guusha ayuuna dhaliyay
markaan u imaano weerarka rag aan laga filaynin ayaa toddobaadkan qaab ciyaareed cajiib la yimid waxaana ugu horeeya ninka lagu magacaabo Maja oo ciyaara kooxda Fulham waxa uuna keenay 15 dhibcood. Maja ayaa kooxda Fulham guusha ay ka gaartay kooxda Everton labada gool u dhaliyay sidaasna waxa uu ku keenay dhibco gaaraya 15 dhibcood. Jay Rodriguez oo ciyaara kooxda Burnley oo iyagana kamid ahaa kooxaha kulamada double game lahaa ayaa isna keenay 16 dhibcood. ciyaaryahanadaas ayaa keenay marka la isku dardaro 175 dhibcood. waana wuxuu ahaa kulan toddobaad cajiib ah oo aad looga faa'iideystay tababarayaal badan ay ka faa'iideysteen dhibco badan ay keeneen. haddii aan fiirino kulamada toddobaadkan la ciyaari doono kulanka ugu horeeya toddobaadkan waa oo jimcaha la ciyaari doono waa Wolves iyo Leeds. haddii aan idin xasuusiyo toddobaadkan waa toddobaad kale oo ay kooxaha Leeds iyo Southampton ay leeyihiin double game week oo ama ay laba kulan ciyaari doonaan sidaasna waa inaad u diyaar garowdaa inaad wax ka bedeshid ama aad kaga xisaabtid ciyaaryahanada qaar dib ayaan uga hadli doonaa. Wolves iyo Leeds ayaa iska hor imaan doona waxaa ku xiga Southampton iyo Chelsea, Burnley iyo West Brom, Liverpool iyo Everton, Fulham iyo Sheffield, West Ham iyo Tottenham Hotspur, Aston Villa iyo Leicester, Arsenal iyo Man City, Manchester United iyo Newcastle, Brighton iyo Crystal Palace, Leeds iyo Southampton. kulamadaas ayaa toddobaadkan la wada ciyaari doona. haddii aan fiirino kulamada la isdhihi karo dhibco ayaa ka imaan karo waxaa ugu horeeya kulanka Aston Villa iyo Leicester. Aston Villa iyo Leicester waa laba koox oo qaab ciyaareed wanaagsan ku jira laakiin gool dhalintooduna aad ay u wanaagsan tahay. waxaan ognahay in kooxda Leicester ay qaab ciyaareedkeeda markay garoomada dibadda ku soo ciyaarayso xil ciyaareedkan uu wanaagsan yahay sidaasna ay haysto fursad wanaagsan oo ciyaaryahanno badan ay isbedel samayn karaan. waxa ugu horeeya Jamie Vardy oo marka la soo laabtay, Harvey Barnes ayaa kamid ah oo qiimihiisana uu gaaray 6.8. dhinaca kale Aston Villa goolhayahooda oo toddobaadkii la soo dhaafay 12 dhibcood keenay markii uu 9 badbaadin uu sameeyay ayaa kamid ah dadka lagu tashan karo oo mar walbana xil ciyaareedkan goolhaye la isku haleyn karo. waxaa kaloo looga xisaabtami karaa waa ninka lagu magacaabo kabtanka kooxdaasi waa Jack Grealish. qiimihiisu wali waa sidiisii waa 7.8 welina waxa uu dhibco ayuu keenayaa. waxaa ku xiga Oli Watkins oo weerarka ka ciyaara. Oli Watkins qiimihiisu waa 6.5 waxaana laga yaabaa in kooxda Leicester uu dhibaato u geysto. kulanka kale la isdhihi karo goolal ayaa ka imaan karo waa kulanka ugu horeeya toddobaadkan Wolves iyo Leeds. Leeds waxay ciyaari doontaa 2 kulan sidaasna waa maamulayaasha waxaan kula talinaynaa inay ka faa'iideystaan oo ciyaaryahanada sida Rafinha iyo Bamford oo labada ciyaaryahan hadda loogu iibsashada badan yahay toddobaadkan oo xitaa qiimahooda hadda uu sare u kacayo marka aad uga faa'iideyso. Rafinha waa nin qadka dhexe ah sidoo kale weerar badan soo celiyay oo dhibco badan keenay. Bamford asna waa weerarka kooxdaasi oo isla xil ciyaareedkan dhibco badan looga xisaabtamayay maamulayaashana ay aad u iibsanayaan oo ay maadaama toddobaadkan uu 2 kulan ciyaari doono ay rajeynayaan inuu dhibco badan u keeni doono. dhinaca Wolves Neto ayaa kamid ah ragga laga yaabo inay dhibco ay ka keenaan kulankaas. haddii aan fiirino kulanka West Ham iyo Tottenham kooxda Tottenham xaaladeedu xogaa waxaa moodaa in ay ka yara taalo laakiin weli waxay haystaan ciyaaryahanno farqi samayn kara sida Kane iyo Son. welina Mourinho oo aan ognahay inuu laga yaabo in kooxdaasi ay isbedel muuqda uu ka keeno in ay West Ham ay dhaawac u geysan doonto. dhinaca kale West Ham iyada lafteedu waa wanaagsan tahay oo xil ciyaareedkan qaab ciyaareedkeedu wanaagsan yahay. Soseg ayaa kamid ah ragga dhibcaha badan keenayay. waxaa kamid ah Antonio oo dhaawacii ka soo laabtay. kulanka kale asna dhibcaha ugu badan laga filayo toddobaadkan waa kulanka kooxda Manchester United ay wajahayso kooxda Newcastle.
Newcastle oo aan ognahay in xilli ciyaareedkan ay qaybaha ugu hooseeyay lixda ugu hooseeyay ku jirtay ayaa isla aad moodaa inay soo yar noolaanayso laakiin Manchester United oo kaalinta labaad ku jirta qaab ciyaareedkeeduna uu wanaagsan yahay ciyaaryahanno badan oo dhibco badan keeni karana ay ku jiraan waxaa meeshaas suuragal ah in dhibco badan ay ka imaadaan oo gool badan la iska dhaliyo kooxda Manchester United sida caadada ahayd Bruno Fernandes waa mar walba waa lagu tashan karaa asaga Edison Cavani ayaa ah farqiga cajiibka sameyn kara oo asagoo maadaama uu maalmahan ku soo bilaabanayo oo Martial uu aad moodo inuu ka soo hormaray laga yaabo inuu meeshaas dhibco ka keeno Rashford ayaa sidoo kale dhibco keeni kara ciyaaryahanka McTominay oo gool dhalintiisa hadda ay soo badanayso asna waa farqi cajiib ah oo laga faa'iideysan karo dhinaca Newcastle waa Callum Wilson wali waa ka maqan yahay wali lama xaqiijin xilliga uu soo laabanayo laakiin waxa ciyaari doona ninka lagu magacaabo Almiron oo farqi cajiib ah noqon kara weerarkiisu waa wanaagsan yahay sidoo kalena waxa uu keenaa caawin nin madaxa ku fiican ayaa u ciyaara waa Andy Carroll meeshaasna waxaa laga yaabaa inay dhibco uga yimaadaan kulanka kale ee asna toddobaadkan la filay inay dhibco ka yimaadaan waa Liverpool iyo Everton kulanka Merseyside Derby kulankaas Salah ayaa goolasha ugu badan hadda waayadan dambe ka dhalinayay Salahna 7 kulan oo kulamada hadda ugu dambeeyay 7 gool ayuu dhaliyay marka waa lagu xisaabtami karaa ninkaas Salah iyo Mane iyo dhamaan weerarka Liverpool waa lagu xisaabtami karaa dhinaca Everton oo kale Calvert-Lewin kulankan inuu ciyaari doono waa la xaqiijiyay oo tababaraha ayaa sidaas sheegay difaacooda Digne oo caawin sameeyay toddobaadkii la soo dhaafay asna waa lagu xisaabtami karaa James Rodriguez oo aad moodo in toddobaadkii la soo dhaafay la nasiyay kulankii ugu dambeeyay waxaa suurtagal ah inuu ku soo bilowdo kulankan si guud kulankaasi waa kulan waliba Salah oo kale aad lagu xisaabtami karo haddii aan u gudbo dhinaca kabtanka toddobaadkan kabtanka ugu badan ee hadda la hadalayo oo laga yaabo in la wada saarto maamulayaasha inta badan waa Bamford oo 2 kulan leh Bamford wuxuu wajahayaa kooxda Leeds sida hore uga soo hadlayba iyo kooxda Southampton Patrick Bamford ayaa kulamadii hadda ugu dambeeyay kulankii ugu dambeeyay hadda Arsenal waxa uu gool ma keenin laakiin kulankii ka horeeyay gool ayuu dhaliyay sidaasna waa ninka ugu cadcad maadaama 2 kulan uu ciyaarayna fursad ayaa meeshaas ku jirto oo waxaa laga yaabaa in uu dhibco ka soo xareeyo kooxda kale ee Southampton waxay leedahay 2 kulan ay ciyaaraysaa ciyaaryahanno ayaa jiro sida Danny Ings kulamadii hadda ugu dambeeyay waa uu soo dhaliyay 2 kulan oo isku xigtay iyo soo xiriir ayuu soo dhaliyay wuxuu wajahayaa kooxda Chelsea iyo kooxda Leeds waxaa suurtagal ah halkaasi waliba kulanka Chelsea uu wajahayo inuu gool ka keeno sidoo kale Leeds difaaceedu waa jilicsan yahay eegana halkaas inuu gool ka keeno laga yaabaa sidaasna wuxuu ka mid yahay kabtanada toddobaadkan ugu cadcad ee laga yaabo in maamulayaasha inta badan ay saartaan maadaama 2 kulan ay leeyihiin kabtanka kale ee lagu xisaabtami karo waa Bruno Fernandes wuxuu wajahayaa kooxda Newcastle-na waxaa suurtagal ah in goolal badan laga dhaliyo Bruno Fernandesna maadaama caawintiisa iyo fursadaha uu abuuray aad u badan yihiin waa ninka ugu cadcad gool dhalintiisuna aad bay u wanaagsan tahay oo waa gool dhaliyaha labaad xilli ciyaareedkan markii loo fiiriyo kala sareynta gool dhaliyaasha sidoo kale waxaan la dheelsan karin oo aan mar walba la inkiri karin oo la xaqiri karin Son iyo Kane waxay wajahayaan kooxda West Ham laakiin mid kamid ah waa loo dhiiban karaa kabtanka ayaan isleeyahay sida Kane oo hadda ku soo laabtay kooxda oo mar walbana markii la dhaho rigoora haddii la helo asaga qaato inta badan marka Son waa nin qadka dhexe hadda ka ciyaara qadka dhexena mar walba weerarka kale ee ka ciyaara afka hore ciyaarana u diiwaan gashan ay ka dhibca badan yihiin marka sidaas darteed Kane iyo Son midkood ayagana waa loo dhiiban karaa waxaa ku xiga Salah wuxuu wajahayaa sidaan hore uga soo hadlay kooxda Everton oo gool badan uu ka dhaliyo oo gool 2018 waxaan xasuustaa uu ka dhaliyay goolkii sanadkaas noqday marka Salah waa kabtan macquul asna iyo sidoo kale Vardy wuxuu wajahayaa kooxda Aston Villa
Vardy sidoo kale waa wuxuu dhaliyaa goolasha dibadda inta badan soo dhaliyaa sidaasna waa lagu xisaabtami karaa waa kabtan